madashan deeqda baabuurka lagula kala wareegay waxa goobjoog ka ahaa hoggaanka taliska ciidanka booliska Somaliland madax dhaqameed ka soo jeeda deegaanada Wadaamo-Goo iyo Loogu ganacsato Axmed Cali Ubaxle oo ah muwaadinka gaadhigan ugu deeqay ciidanka booliska degmada Wadaamo-Goo ayaa dul istaagay ujeedada deeqdan uu uga gol leeyahay maanta waxaan halkan isugu nimi anagoo la joognaa Taliyaha ciidanka booliska Somaliland in aanu ku wareejino haddii aanu nahay maxaa la yiraahdaa deegaanka degmada Wadaamo-Goo baabuur aan ugu talagalnay in loogu shaqeeyo ciidanka booliska laguna ilaaliyo nabadgelyada marka aan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shirkadda Hargeysa Automotive waxaan jecelahay inaan guddoonsiiyo baabuurka halkan dabadeena taagan Taliyaha ciidanka booliska Somaliland waxaan jecelahay inaan kugu soo wareejiyo miftaaxii baabuurka haddii ay ku roon yahay إن شاء الله تعالى إلى هنا وكرديو بابور إنه فليه دنتا يوجد إنه كلنا هاي نبتقليو وقدام بنتي وحنا لا يدك الدجاج وحنا فرين هاني دين كدير يا إن عن يدي نينا ندين رأي دونين يانو يدين فرين مرة الدجاج الله هيدجو مرة بعد الدجاج عنيق الله هيدجو وجد عن كلا يحويه بلنقات كايفدين يان دتك شليتو دجاج يو دروفي سبك ورهيي kuraasta ugu sareeyay xilka dawladnimada ku fadhiyay waxa la leeyahay waxay deegaanka iyo dadka u qabteen aanay jirin maanta ballanqaadkay sameynayaan waxaan u aqbarkaa inuu yahay hambag iyo been waxaan leeyahay dawladana wax la qabsada xisbiga talada haya insha Allah taala uu ku guuleysanayaa isagana taageera iyagana waxaan leenahay wadada Wadaamo-Goo iyo Loogu isku xidha gacanha laga geysto dawlad ahaan hanaloo dhiso sareeyo guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan Taliyaha ciidanka booliska Somaliland ayaa ka mahadnaqay deeqdan la soo gaarsiiyay ciidanka booliska degmada Wadaamo-Goo isagoo iftiimiyay waxa ay deeqdan ciidanka u tarayso aad iyo aad baan deegaanka Axmed la soo hawlgalay iyo Axmed oo keenay baabuurka oo degmada Wadaamo-Goo soo iibiyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa taliyaha qaybta iyo cidda saldhigga ka mas'uulkiina waxa leeyahay inay gaadhiga ilaaliyaan way ku ilaaliyaan nabadgelyada waana arrin muhiim oo nabadgelyada xubin ka tirsan degmada Wadaamo-Goo in aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gaadhigu waan kala wareegay waxaan leeyahay gaadhiga deegaanku waa ilaashado taliyaha qaybtuna waa inuu gaadhiga ilaaliyaa oo la xafidaa waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay waa wax weyn baad nabadgelyada ku soo kordhisay aaga wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cabdirashiid Riyaraac iyo oday Cabdi Xuseen Dheere ayaa si isku mid ah waxa ay uga wareemay faa'iidada deeqdan ay u leedahay horumarinta iyo taabagelinta nabadgelyada degmada Wadaamo-Goo Generale waxaan ku sheegayaa degmadanu Boliska si gaar ah ula shaqeysa dadkeeda haday gaarigeena keeneen saldhigeena dhisteen waa degmo u diyaaray in nabadgelyada ka shaqeyso mar haday inta israacisay waxaan leenahay idinkuna il gaar ah ku eega oo la socda degmadaas wax qabsatay idina waxa ugu beeri kartaan ugu beeriya xukuumaduna insha Allah aad bay ugu faraxsan tahay oo shacabka cidii wax soo kordhisay iyo shirkadaha ganacsiga wax soo kordhiyana aad ba loogu farxayaa waxaan leeyahay hantida qaranka ee maanta la idinku wareejiyay haddaad tihiin bulshada degmada degan idinka waxaan leenahay hantida qaranku waa wax dadka dhaxeeya qaranka la siiyay ummadda oo dhan bay ka dhaxaysaa gaariga haddii loo baahdo Wadaamo-Goo waa la siiyay amaba ciidanka booliska lagu wareejiyay haddii loo baahdo mid kale la idin keenaya waa la bedelayaa meel kale oo kaga ayaa la geynaya hanti qaran weey Axmed Cali Ubaxle deeqda tan degdega ee durba la soo gaaray degmada cusbayd aad iyo aad baan garanaysaa ugu hambalyeynaya ugu mahadnaqaya aadna waxaan magaranaysaa ugu faraxsanahay sida magaranaysaa jalanku uu noo soo dhaweeyay magaranaysaa noo qaabilay magaranaysaa noogu fududeeyay in aanu magaranaysaa ciidankiisa ku wareejino magaranaysaa baabuurkan